kulan wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dallada Sooma oo ah dallada ay ku mideysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Somaliland. barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaalada iyo meel ka baxsanba. anigoo Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. maantana waxaan ku eegi doonaa dadka qaba baahiyaha gaarka ah oo aan door ku yeelan doorashada xildhibaanada ee dhamaadka ah, caruurta la nool cudurka autism-ka oo markii ugu horeysay helay xarun wax lagu baro, iyo waraysi aan idinkaga hayno saameynta uu baraha bulshada ku leeyahay nabadgelyada qofka. aan ku bilownay doorashada xildhibaanada ayaa maraysa heer dhamaad ah, iyadoo qaar ka mid ah xubnihii la doortay la siiyay shahaadooyinkii xildhibaannimo. waxaase jira in meesha ay ka baxday rajo badan oo ay ka qabeen dadka qaba baahiyaha gaarka ah inay xubno ku yeeshaan baarlamaanka 11aad ee dalka. qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo horey u shaaciyay in ay musharaxiin yihiin waxaa tartanka looga saaray in ay yihiin naafo darteed, iyagoo hadda ku talinaya in loo sameeyo qoonda la isla ogyahay oo markii doorashada la gaaro aan laga tallaabsan karin, si ay isaga arkaan golayaasha dowladda maadaama ay ku jiraan dad aqoon-yahano ah ayna u baahan yihiin in la doorto iyaguna ay codkoodu dhiibtaan. raxma maxamed ayaa ku eegaysa warbixintan. sida ku xusan dastuurka dalka waxaa 4 sanaba wadanka ka dhaca doorashooyin baarlamaani ah kuwaasi oo soo doorta hoggaanka ugu sareeya dalka ee madaxweynaha, balse doorashooyinku ma ahan kuwa ay si siman uga qayb qaataan bulshada qeybaheeda kala gedisan. tani waxaa door aan la mahdin ku leh dadka naafada ah oo aan helin cod ay wax ku doortaan iyagana la doorto. aamine maxamed dhurow waxay ka mid ahayd dadka qaba baahiyaha gaarka ah oo u tartamaysay kursi ka mid ah golaha shacabka oo doorashadiisu ay ahayd gobolka Banaadir, laakiin waqtigii doorashada ayaa lagu wargeliyay aamina in aysan qayb ka ahayn tartanka sabab la xiriira in ay tahay qof qaba baahiyaha gaarka. sanadkii 2019 ayay ka mid ahayd koox loo tababaray ilaalinta qoondada haweenka, iyadoo halkaasi ka heshay waayo aragnimo xagga siyaasadda iyo sida loo sameeyo galaangal dhinaca kursi doorashada. waana markii uu ku dhashay hamiga ah in ay gasho tartanka doorashada. sababta aamina ku dhalisay inay raadiso kursigaasi ayay ku sheegtay in mar ay kala kulantay cadaalad daro wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xilligaas oo ay musharax u ahayd hay-adda naafada qaranka Soomaaliyeed. wixii intaasi ka dambeeyayna ay ku hamisay inay raadiso jago sare. aamina ayaa Sooma u sheegtay in ay la kulantay nabadoonka beesha ayna ka dhaadheecsay sida ay wax u rabto, isla markaana waxa ay u bandhigtay heerka ay gaarsiisan tahay aqoonteeda, isaguna uu ka aqbalay inay xaq u leedahay gelidda tartanka, balse ay wax walba isbedeleen marka la soo gaaray xiliga doorashada oo ay kursiga kula hardamaysay 3 rag. dabcan waa u sheegay marka u tagay waan la hadlay, waa isbaray qof wax bartay oo maxaa la dhahaa maanta raba inuu isbedel sameeyo. waxbarashadii intaas uu ku soo daalayna kamira dhaliyo u baahan bulshada isaga la midka ah iyo dadka uu metelaba wax inuu u qabto oo xaaladii horena wax uu ka bedelo diyaar waa inaan ahay aan u sheegay. waa ila fahmay dabcan kadibna waxa la ii soo bandhigay inaan tartami karo oo xur aan u ahay haddii jeebkeyga markaasito aniga aan ku tashanayo qof xaq u leh inay tartanto aan ahay la ii sheegay. dabcan markaas waan ku sii dhiiriday. marka xildhibaan ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka lama soo dooran, taas ayaana ka dhigan in mar kale dadkan aysan helin mas'uuliyiin ku matala golaha baarlamaanka labadiisa aqal dareensanna baahiyahooda. axmed xasan dige oo qaba baahiyaha gaarka ah kuma faraxsana sida ay doorashada xildhibaanada dalka ugu qabsoontay welina ay ugu socoto. waxa uu sheegay in bulshada qeybaheeda kala duwan iyo odayaal dhaqameedyada aan baraarug badan haysan dadka naafada oo lagu qiyaaso in bulshada Soomaaliyeed ka yihiin 20%. waxa uu intaasi ku daray in ay maqan tahay kaalintii ay dowladda ku lahayd sidii loo heli lahaa tiro boqoley ah oo ay ka dhaxelayaan baarlamaanka
wasiirada iyo jagooyinka sare ee dalka, taasoo uu aaminsan yahay in ay sameyn karto isbedel weyn oo xaggooda ah. Axmed ayaa Soomo u sheegay in dadka baahiyaha gaarka qaba ay muhiim u tahay helidda cod ay ku xisaabtamaan, sida in ay wax doortaan lana doorto, suurtagalna noqon lahayd in ayba ka fiicnaadaan kuwa badan oo horey loo tijaabiyey oo lixaadkooda qaba. dadka baahiyaha gaarka qaba bulshada Soomaaliyeed number weyn bay ka yihiin, waa dad dhanka siyaasadda, dhanka arrimaha bulshada intaba qaybo kala duwan inay ka galaan u baahan. Marka xuquuq badan baa kaga maqan dhanka doorashada, muhiim way u tahay wax badan runtii in la doorto, ayagana ay wax doortaan, haday noqoto golaha baarlamaanka, wasiirada iyo haday noqoto madax ka sareysa intaba inay noqdaan. Marka waxaa la arkay malaha hadii la tijaabin lahaa saan isleeyahay inay ka fiicnaan lahaayeen kuwa badan oo maanta xilalkooda lasoo tijaabiyey oo dilxaadkooda qaba. Professor Maxamed Ciise Liibaan oo ah bare jaamacadeed isla markaana si weyn ugu ololeeya arrimaha bulshada ayaa tilmaamay in dadka naafada ah looga baahnaa in iyaga laga helo shakhsiyaad ka dhex muuqanaya ergooyinka wax soo xulaya si ay ugu gorgortamaan awoodooda, taasi oo ka caawin kartay in ay soo saartaan dad naafa ah oo musharaxiin noqonaya. Si loo helo dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku jira baarlamaanka ayuu Dr. Liibaan xusay in loo baahan yahay in bulshada dhexdooda laga dhex bilaabo wacyigelin ku aadan sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda, mas'uulna ka yihiin mas'uuliyiinta sare ee dowladda. Si loo helo dad yani baahiyaha gaarka leh ee baarlamaanka ah loo helo, waxaa loo baahan yahay horta wacyigelin xoog badan oo bulshada dhexdeeda ah oo taasoo tilmaamaysa yani xuquuqdooda iyo si gaar ah in la isaga xilsaaraan bulshada iyo mas'uuliyiinta oo dhan. fahmi guud waa inuu jiraa. 2 waxaan isleeyahay waxaa loo baahan karaa iyadana in hadda kulley waqtiga kan marnaba ma aha, laakiin xilliyada soo socota in qoondo haddii loogu talageli karo oo arintaas dadkaas loogu talageli karo in loo sameeyo waa arrin kale oo dhici karta. way mahadsan tahay waryaheena Raxma warbixintaas nala socodsiinaysay. maalinta wacyigelinta cudurka autism-ka adduunka waa maalin caalami ah oo loo aqoonsaday 2 Abriil sanad kasta in la xuso, taas oo ku dhiirigelinaysa dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay in ay qaadaan tallaabooyin kor loogu qaadayo wacyiga dadka qaba xanuunka autism-ka ee adduunka oo dhan ku nool. waalidiinta dhalay caruurta la nool xanuunkan waxa ay inta badan dareemaan calaamadaha autism-ka 3 sano ay ugu horeysa nolosha caruurtooda. calaamadahan waxaa badanaa ay u koraan si tartiib ah, inkastoo qaar ka mid ah caruurta autism-ka qaba ay la kulmaan dib u dhac xagga xiriirkooda iyo xirfadahooda bulsheed kadib markii ay gaaraan heerarka koriinka ee si caadi ah. markii ugu horeysay waxaa dalka gaar ahaan Muqdisho laga furay iskuul wax lagu baro caruurta qabta autism-ka, iyada oo qaar ka mid ah waalidiinta oo quus ka taagnaa in waxbarasho ay u helaan ubadkooda ay hadda aad ugu faraxsan yihiin. Maxamed Xasan oo Muqdisho jooga ayaa ku eegaya warbixintan. magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyay iskuul ay wax ku baranayaan caruurta aan hadli karin ama koriinshahooda hooseeyo, kaasi oo loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan fursad waxbarasho oo u dhiganta tan ay hadda haystaan marka loo eego xaaladooda caafimaad. Saynab Xasan Cali oo ka mid ah waalidiinta ay caruurtooda halkan wax ku bartaan, waxa ay wiilkeeda oo muddo 2 bilood ah halkan dhiganaya ku aragtay isbedel weyn kadib markii uu bilaabay in uu hadlo kuna dhawaaqi karo hadda magaca hooyadii, halka markii hore uu ahaa mid shibana ah. waxayna u aragtaa fursad weyn maadaama markii hore aysan ogeen goob ay wax ku bartaan caruurta sidan ah, xil ay ku wargeliyeen saaxiibadeed oo u sheegay in la hirgeliyo xarun ay wax ku bartaan ilmaha la nool xanuunka dhimirka. Saynab waxay hadda rajo wanaagsan ka qabtaa in wiilkeeda oo 6 jir ah uu hadli doono walwalkii badnaana uu ka yaraaday. شاول ما هذا جرين محرك هذا جرين وسكام سناجر هذا الله سبحانه ما شاء الله فرحة بدنا كلا كلنا والله مالك استاجي وحنا نتيجة ما بكله هنا مركا هل كان كنا نتيجة كلا كلنا أول واحد نتيجة ويلكا قد يبدأ بو هلا مسدي جرين لكن هذا فرحة بدنا يجسوا موقته. helidda goob sidaan oo kale ah waa mid ay ku taameeyeen waalidiin badan oo aaminsanaa in ay adag tahay in wax la fahamsiiyo caruurtooda qaba xanuunka autism-ka, isla markaana qoys ka joogay
sida uu noqon doono mustaqbalkooda. Raxma Maxamuud oo ah maamulaha iskuulkan ayaa sheegaysa in ujeedada ay u fureen ay tahay in ay helaan caruurtan sida kuwa kale ee asaagooda ah, loona baahan yahay inay helaan fursad looga fikiro ayahooda dambe. sidoo kale waxay sheegtay in ay soo kordheen dadka bartay cilmi nafsiga iyo in magaalada Muqdisho ayna ka jirin xarumo sidan ah, balse ay weli yar tahay tirada ardayda wax ka baranaya iskuulka marka loo fiiriyo baahiyaha ka jira magaalada. fasal kasta waxaa dhigata arday tiradooda u dhaxayso 4 ilaa 7 cunug, waxaana waxbara 2 macalin midkiiba, taasi oo ku tusinaysa juhdiga lagu bixinayo ilmuhu, iyadoo da ahaan ay u dhaxayaan 3 sano jir ilaa 12 jir oo gabdho iyo wiilal ah. ku ahaantii waxaa igu dhali baahi jirto iyo waalid dhibaataysan oo ilmo guri ku haysto, ilmo ku weynaanayo oo daryeel xumo ka haysto, waxbarasho la'aan ka haysto. mid labaad dadkii oo soo bartay cilmigaan aan ahay, cilmi nafsigan oo caruurta especially kuwa special needska, iyo mid kale Muqdisho aan ka jirin ama gobolka Banaadir aan ka jirin xarun oo daryeesha caruurtan baahiyaha gaarka qaba. marka that's why aan u sameeyay xaruntan. waxaan ku xulnay horta dad aqoon u leh oo cilmiga soo bartay oo dibadda ka wada imaaday macallimiinta, sida kale caruurta sida loo dhaqmo yaqaano oo fahmi kara xaaladahan iyo tacaamulka ilmahaas sida oo wax loo bari karo, sida loo soo jiidan karo. inkasta oo ay Dictoraysa Raxma dareysan tahay baahida isa soo taraysa oo xarunta ka jirta, haddana waalid walba oo dhalay cunug qaba autismka ma awoodi karo in uu halkan ka diiwaangeliyo qarashka ku baxaya oo aan yareyn awgees. waana arrin ay lafteedu si dhow ula socoto xaaladda caruurta sidaan oo kale ah ee ay dhaleen kuwa danta yar, balse halka ay degan tahay looga baahan yahay kiro iyo inuu ku baxayo qarash barayaasha wax u dhiga caruurta ayna u saamaxaynin xilligan in ay fursado u siiyaan waxbarashada. hadda danyar wax uma qaban karno, waayo meesha way xadidan tahay. fasalkiina 4 qof ama 7 qof laga rabaa, waa lagu xisaabtamaa macalinkiisa iyo kiradii wax dhan lagu xisaabtaa. Tirakoob rasmi ah lagama hayo tirada caruurta Soomaaliya joogta ee la nool autismka, balse Dr. Raxma ayaa aaminsan in 100,000 ay gaarayaan. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO warbixin ay soo saartay 2019 waxay ku sheegtay in 160 caruur oo mid ka mid ah la nool yahay xaaladan dunida oo dhan, wiilashana ay 4 ilaa 5 jeer kaga badan yihiin gabdhaha. weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya. dadka isticmaala baraha bulshada ayaa soo bandhiga macluumaad shakhsi ahaaneed oo ku saabsan noloshooda, iyada oo la sheegayo in uusan jirin fakar ku saabsan waxa ka dhalan kara faafinta xogaha gaarka ah. waxa ay la tahay mid sahlan, laakiin waa ay ka weyn tahay arrintu sidaas, waayo xogtooda ayaa noqonaysa buug furan oo qofkii u baahda akhrin kara, taas oo ay ka digayaan khubarada arrimaha tiknoolajiyadda. dhibaatooyinka ay ka mid yihiin in la jabsado barahooda bulshada
ayay la kulmaan dadka qaar iyadoo markaas lagu baahiyo macluumaad aan munaasab ahayn. haddaba saameynta uu baraha bulshada ku leeyahay nabadgelyada qofka waxaan ka wareysanay injineer cabdisataar carabow oo darajada 2 ka haysta culuumta kombiyuutarka. saameynta ugu badan ay leeyihiin isticmaalka baraha bulshada ama nabadgelyada qofka waxaa muhiim ah qofka inuu xog walba si sahlan uun kusoo dhigin, hadday noqon lahayd sawir ama videos ama hadday noqon lahayd macluumaad kale oo si la xiriirto iyo macluumaadka uu soo dhigayo qofka mar walbaba inuu privacy-ga xadido. yaa arki karo macluumaadkaaga, waxaa kaliya arki karo saaxiibaday, waxaa arki karo walaalahay, dadkana ma arki karo. inta badan annaga kuma baraarugno ama dadka isticmaala baraha bulshada kuma baraarugaan xogtooda markay bandhigayaan, ciddii u bandhigayaan way iska bandhigaan. marka qofka waxaa la ogaan karaa meesha uu degan yahay, waqtigaas meesha uu joogo, meelaha uu ka shaqeeyo. macluumaad walbana baraha bulshada dadka laguma wadaago. marka waxaan aragnaa inta badan marka bulshadayna dhibaatooyinka ugu badan ay kala kulmaan waxay tahay barnaamijyada live-ka la soo galayo. waxaa la ogaan karaa qofka waqtigaas meesha ku sugan yahay iyo macluumaadkiisa iyo xataa hadda noqon lahayd dharka uu wato, gaariga uu wato, hadday noqon lahayd taargada gaarigiis ku xiran. waxaan aragnaa inta badan inay dadka si online ama live ay usoo tabiyaan. marka muhiim ah qofka inuu ku baraarugo macluumaadka aad dadka la wadaagaysi inaa mar walba xadidid aad macluumaadkan aad soo gelinaysa baraha bulshada. waxa arkay kaliya saaxiibaday. sidee baraha bulshada u saameeyaan nabadgelyada qofka? baraha bulshada saameyn ayuu ku leeyihiin nabadgelyada qofka, laana qofka waxaa la ogaan karaa wax walba uu qabto, meesha uu degan yahay, meesha uu ka shaqeeyo, waxyaabaha uu xiiseeyo, waxyaabaha uu aadka u daneeyo, si sahlan ayaa lagu ogaan karaa. sidee qofku u ilaalsan karaa xogtiisa gaarka ah ee baraha bulshada? wuxuu u ilaalsan karaa kow inuun mar walba qof walba la wadaagin, si public usoo bandhigin, inuu saaxiibadiis qaas kaliya la wadaago. sidoo kale wuxuu usoo bandhigi karaa xogta uu soo dhigaa xogta fatiran aan saameyn u keenin inay noqoto. sidoo kale qofka xogtiisa gaarka ee inta badan oo xasaasiga ah inuuna soo dhigin baraha bulshada, taasaa ugu fiican taxadirka. marka walbaba macluumo walbaba ha la wadaagin baraha bulshada, laakiin macluumaadka la soo bandhigayo inay noqdaan macluumo iska sahlan oo qofka ay saameyn ku yeelanin. marka annaga waxaan aragnaa inta badan in xataa cunooyinka aan cunayna inaa baraha bulshada dadka aan kula wadaagno, taasna waxaa laga yaabaa khatar badan inay qofka xataa ku keento. oo inta badan dad badan wax cuna inay haysana laga yaabaa maalinta qadadaas quruxda badan markay arkaan oo qofkan iibsan karin inay saameyn xataa ku yeelato qofka shakhsiga. marka waxaa muhiim ah xogaha baraha bulshada lasoo dhigay aad in looga taxadiro, cidda arkaysa in la xadido, si sahlanna aan loo soo bandhigin. waana tan ugu muhiimsan qofka uu ku dadaali karo. xogtaada waxaa ku ilaashin kartaa inaan cid walba la wadaagin, waqti walbana aan soo dhigin, xog walbana aan baraha bulshada aan soo dhigin. marka aad baan ugu mahadcelinaa barnaamijkan quruxda badan leh mawduucan aad soo agaasinteen. bulshadeenna baahi weyn u qabaan in qofka la dareensiiyo nabadgelyo xumada kaga imaan karto dhanka baraha bulshada, saameyn xoog badan ku lahaan karto. hadda waxaan aragnaa dad badan aqoon u lahayn oo aan fahmi karno meelaha ka shaqeeyaan, sawiradooda, waxyaabaha xiiseeyaan, waxyaabaha jecel yihiin, waxyaabaha ay daneeyaan. inta badanna si sahlan ayaan kaga arki karnaa boggiisa bulshada annagoo saaxiib la ahayn. marka xataa baraha bulshada marka leeyahay page-ka qofka leeyahay, qaarkood waxaa laga yaabaa inay page profile leeyihiin 5,000 oo qof, cidda aqbasho kaliya ayaa soo geli karto. page kale haddii follow leeyahay laakiin qof walbaa soo geli karto. marka xataa cidda aqbalaysid xataa inaa aad u fikirto. marka qaarkood waxaa muhiim ah dadka saaxiibada kugu xiran ama kusoo dalbanaya ayaga xataa intaan aan aqbalin ka hor meeqa ayaa xiriir idinka dhexeeya. marka qaarkood waxaa arkaysiin qofka kusoo dalbanayo, waxaa ogaanaysiin dadka mutual friendskiina hadduu ka badan yahay 60 ama 100 oo dhan yahay, qofkaasoo kale aqbali karta, laana qof xogtaada in badan ku yaqaano waaye. waana habab kala duwan ayaa looga taxadiri doonaa. waxaan uga muhiimsan waxay tahay qofka wax walba inuun ku nashrin, hadduu xog inuu soo bandhigayo noqoto xogkaas xadida cidda arkayso. taas ayaan ugu muhiimsan. mawaadiicdan aad bay muhiim in la falanqeeyo. qofkana xogihiisa gaarka ah wuxuu xifdin karaa ka hor intuu baraha bulshada soo dhigin iyo habka u soo dhigayo. marka hadduu soo dhigayo in hab xadidan oo qof walba arkin inuu usoo bandhigo, wuxuu soo dhigayana inay noqdaan wax la turxaan bixiyey oo asiga mar walba aan kusoo noqonayn saameyn aan ku yeelanin. aad baa u mahadsantihiin. intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma. waxaanse dhagaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah, sidee door hogaamineed uga qaadan karaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah golayaasha kala duwan ee dowladda? nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefannada idaacaddan. mahadsanidin.